kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Soomaaliyeed Production qodobada aad ku daawan doontaan hadduu rabiidma waxa ka mid noqonayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka carooday tallaabo uu qaaday madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kulan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo Generaal Odowa oo laga cabsi qabo inuu soo dedejiyo xilka qaadista taliyaha militariga Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay kulanka madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha militariga Soomaaliya waxyaabaha lagaga hadlay iyo arintuu ka carooday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaynu warar idinkaga heenaa qodobada kale oo aad ku daawan doontaan barnaamijyadeedkan waxa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo xilka qaadis degdeg ah uu sameeyay iyo dood ka taagan xilka qaadistii uu sameeyay waxaan idin la wadaagi doonaa shakhsiga oo xilka ka qaaday iyo qofka uu u magacaabay oo muran xooggan uu ka taagan yahay xogihii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kalena waxa ka mid noqon doona xog xasaasi ah oo la helay iyo gudoomiyaha dhinaca amniga gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo sheegay inay heleen xog weerar iyaga ka dhan ah madaba in weerar loo diyaariyay siyaasiyiinta nabad iyo nolol ee xilka hayo iyo kuwa aanan xilka haynin ee magaalada Muqdisho ku sugan warar ayaan idinkaga heenaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliyana waxa looga yeeray magaalada Washington ee dalka Mareykanka xilli degdeg uu kaga duulay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xogta safarkiisa ayaan macluumaad idinkaga heenaa si la mid ah qaybaha ugu dambeeyay waxaan idinku soo gudbin doonaa magacyada deegaanadii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab lagala wareegay iyo guusha ciidamada qaranka ay ka gaareen dagaalada ka socanayo gobolada dhaca bartamaha Soomaaliya yaasaaatay intaan ugu gudagelin dhamaantiin daawadayaal muuqaalkan ee like dhaha sidoo kale tana u shargalay saaxiibadiina kale ee jecel mar walba inay helaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan sidoo kale aragtidiina qaybta hoose ee commentiga nagula wadaaga aad iyo aad u mahadsantihiin daawadayaal faafahinta ayaan u gudageli doonaa kulan ka dhacay guriga madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu dhexmaray taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Odowa Yuusuf Raage iyo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xog laga helay kulankaasi ayaa wararku waxay sheegayaan in taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Odowa Yuusuf Raage iyo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intooda ugu badan kulankoodu uu ku saabsanaa dhiirigelin iyo bogaadin madaxweyne Farmaajo uu bogaadinayay duulaanka ka dhan ah Al-Shabaab ee ka bilowday gobolada Soomaaliya isaga oo la sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taliyaha militariga uu ku dhiirigeliyay dadaalada ka socanayo gobolada dhexe ee Soomaaliya oo deegaano badan ciidamada militariga Soomaaliya ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab wararka ayaa sheegayo in Generaal Odowa uu booqday hooyga madaxweynaha oo ku yaalo garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho meel aan sidaas kaga fogeen hase yeeshee xogtan oo macluumaad ku saabsan oo uu helay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu si weyn u kaga carooday in wili uu jiro xiriirka taliyaasha ciidamada iyo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Generaal Odowa Yuusuf Raage ayaa ka mid ah tiro saraakiil ciidan ah kuwaas oo si weyn ugu dhawaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka uu la qaatay taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Odowa Yuusuf Raage madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la warinayaa inay soo dedejin karto xilka qaadistiisa iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu muuqday inuu ka fiirsanayo shakhsiga uu ku bedelayo Generaal Odowa Yuusuf Raage wali waxa muuqatay inuu jiro xiriirka saraakiisha ciidamada iyo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa laba fariin la wadaagay Generaal Odowa kulanka dhexmaray waxaana uu kula taliyay inuu si gaar ah kaga warqabo ciidamada maleeshiyaadka maxbuusley ee dagaalada ka wada gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya marka la eego dhaawacyadooda iyo waliba saanadooda ciidan isagoo madaxweyne Farmaajo sidoo kale taliyaha militariga Soomaaliya kula dardaarmay in la sii xoojiyo dagaalada ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee ka socanayo gobolada dhaca bartamaha Soomaaliya Generaal Odowa Yuusuf Raage oo kamid ah saraakiisha ciidan kuwooda ugu firfircoon ayaa waayidii ugu dambeeyay saddexdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay golaha wasiirada Soomaaliya yeesheen waxa jirtay guuxa xoogan ay ku aadan xilka qaadistiisa waxaana cadaadis ugu xoogan oo ka imaanaya taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo soo jeedinayo in xiriir uu la leeyahay Generaal Odowa Yuusuf Raage madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daayire Mahad Salaad ayaa isku dayay in golaha wasiirada Soomaaliya uu ku cadaadiyo in xilka ay ka qaadaan Generaal Odowa hase yeeshee waxay u muuqataa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka xagajiidayo xilka qaadista taliyaha militariga Soomaaliya oo ah nin firfircoon isla markaasina hadda hormuud u ah dagaalada ka socanayo gobolada dhaca bartamaha Soomaaliya si kastaba ha noqotee warar la helay ayaa sheegayo in Xasan Sheekh Maxamuud aysan farxad gelinin kulanka la ogaaday in toddobaadkan uu dhexmaray Generaal Odowa iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kaleetana dood adag ayaa ka dhalatay xilka qaadis uu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre
Xamse Cabdi Barre ayaa la ogaaday in uu xilkii ka xayuubiyay maareeyihii garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Cabdinaasir Maxamuud Gurey iyada oo mas'uul kale loo magacaabay xilkaasi. Warbaahinta Soomaaliweyn Production ayaa ogaatay xogtan oo si hoos loo helay ka hor inta aysan faafin, waxaana wararku ay xaqiijinayaan in loo magacaabay xilkani Maxamed Singal oo lagu bedeli doono Cabdinaasir Maxamuud Gurey. Cabdinaasir Gurey ayaa xilka hayay muddo sanad iyo 2 bil ah isagoo xilkaasi la wareegay bishii Juun ee sanadkii hore 2021 xilligaasi oo xilka laga qaaday Generaal Cabdi Ashkir. Labaduba waa isku beel waxaana ay ka soo jeedaan deegaanada dowlad goboleedka Puntland. War la helay ayaa sheegayo in muran uu ka taagan yahay xilka qaadistan iyo magacaabista uu sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyada oo arinkan uu si weyn kaga carooday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Maareeyaha garoonka ayaa waayidii ugu dambeeyay muran uu ka taagnaa iyada oo Siciid Denina uu doonayay in loo magacaabo shakhsi isaga uu wato balse waxaanan suuro gelin. balse ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo doonayay in uu u magacaabo shakhsi isaga ay si weyn isugu dhow yihiin beel ahaan ayaa culays iyo cadaadis weyn kadib waxa uu magacaabay shakhsi kale oo uusan raali ka ahayn Siciid Deni balse beel ahaan ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland. Lama oga sida Siciid Deni uu kaga falcelin doono tallaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Xamse, hase yeeshee guux xooggan ayaa ka dhalatay xilka qaadista maareeyihii hore ee garoonka diyaaradaha iyadoo uu dalku ka maqan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaana maareeyaha xilka laga qaaday. War la helay ayaa sheegayo in xilka laga qaaday lagu eedeynayo inuu si weyn ugu dhow yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. geesta kaleetana saraakiisha nabad iyo nolol ayaa sheegay inay heleen xog ku aadan weerar lala damacsan yahay in iyaga lagu bartilmaameedsado waa kuwa sida weyn ugu dhawaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xogtan waxaa baahiyay Cali Yara Cali oo kamid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee xisbiga nabad iyo nolol, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ka ah gobolka Banaadir. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ee wili xilka qaadista aan lagu sameynin Cali Cabdi Wardheere Cali Yara Cali ayaa waxa uu ka hadlay dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa siyaasiyiinta qaar ee nabad iyo nolol ku jiro ee ka socda magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan yihiin qorshe ku aadan in la beegsado xubno ka tirsan nabad iyo nolol iyo midowga musharaxiinta mucaaradka. Cali Yara Cali ayaa qariyay magacyada shakhsiyaadka la rabo in la weeraro balse si maldahan ayuu u sheegay balse dad isugu jira musharaxiinta mucaaradka iyo xubno ku jira nabad iyo nolol dowladdu inay damacsan tahay inay beegsato. Hay'adda NISA ayaa lagu eedeeyay in qorshahaasi ay doonayso walow aysan ka hadlin eedaasi loo soo jeediyay. waxaana dowladii hore uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka dhalisan ay ku eedeynayeen inay beegsato siyaasiyiinta dowladda ka fikir duwan ee weerar ay ku qaado walow aanan cadeyn loo haynin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu hore u sheegay markii uu xilka dalku la wareegay inuusan jiri doonin arsi siyaasadeed oo ay sameyn doonto dowladiisa, balse waxay u muuqataa warka ka soo yeeray Cali Yara Cali in uu xaqiiqo u yahay kadib markii dhawaan toddobaadkan uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Washington ku sugan in ciidamada Eritrea ka joogo lagu diiday sabab la xiriirta in uusan doonaynin siyaasad afwargi in ciidamada dowladiisu ay tababartiin loo adeegsado siyaasadaha iska soo horjeeda ee Soomaaliya ka jiro, gaar ahaan in lagu bartilmaameedsado siyaasiyiinta ka fikir duwan damul jadiid. Hadalka Cali Yara Cali ayaa daboolka ka qaadayo damac weyn oo ku jiro Mahad Maxamed Salaad iyo xubno kale oo damul jadiid ka tirsan kuwaasi oo qorsheenayo inay bilaabaan argudasho siyaasadeed isla markaasina ay beegsadaan xubno xilka haya dowladda balse fikir ahaan si weyn u taabacsan maamulkii hore uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. geesta kaleetana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay dagaalada ka soconaya gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ee loogaga soo horjeedo ururka Al-Shabaab iyaguna dad shacab ah oo aan waxba galabsan ay guryo ay ka gubeen. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay gubeen guryo dad shacab ah ay degnaayeen kuwaasi oo ku yaalo deegaanka Ceel Jiiqo oo u dhow magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Wararka ayaa intaas ku daraya in Al-Shabaab ay sidoo kale qaraxyo ay ku xireen Ceel Biyoodyo halkaasi ku yaalo iyadoo il wareeday sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo maleeshiyada maxuusulay dhankooda ay xoojiyeen dagaalada ka dhan ah ururka Al-Shabaab iyadoo ururka Al-Shabaab jab xoogan ay kala kulmeen dagaalada ka soconaya gobolada dhexe ee Soomaaliya. Maleeshiyada maxuusulay ayaa si weyn loogu amaanay dagaalada ay ka wadaan gobolada dalka iyagoo garab ka helaya
ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxaana sidoo kale saacadii la soo dhaafay kacdoonka ku biiray mas'uuliyiin iyo xildhibaano dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa heer dowlad goboleedka waxaana al-shabaab ay u muuqdaan in dib xoogan ay kala kulmeen dagaalada socanayo in ka badan 11 deegaan ayaa al-shabaab lagala wareegay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolada dhaca bartamaha Soomaaliya deegaanadaas ugu badan ee al-shabaab lagala wareegana waa kuwa ay si weyn u maamuli jireen sanadadii ugu dambeeyay waxaana ay u muuqataa in al-shabaab ay ku jabeen dagaaladaasi haddii ay ciidamada militariga Soomaaliya ay ku guuleystaan dagaalada ay ka wadaan gobolada dalka waxay noqon doontaa guul weyn oo ay u soo hoyeen qaranka Soomaaliya iyaga oo aanan u baahnayn ciidamada shisheeye ee caawiya waxaana si weyn loogu amaani doonaa guusha militariga Soomaaliya ee soo hoyeen iyaga oo aan garab ka helin ciidamada shisheeye ee AMISOM gudaha daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Soomaali Weyn Production tan iyo kulanti dambe wadii warsan